waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena waxaan uga hadlaynaa 9 waxyaabood oo keena caajiska iyo talaabooyinka aad ugu hortagi kartid. Qodobka koowaad, dib u dhigista hawsha. Hawl kasta oo aad dib u dhigtaa waxay keentaa caajiska ugu badan waxaana laga dhaxlaa guul darro. Qorshe la'aan. Dad badan ayaa waxay ku nool yihiin nolol bilaa qorshe ah, taas oo ka dhigaysa in aadan dhadhaminin nolosha macaankeeda. yool inaad yeelato waxay kaaga baahan tahay hawl badan, fikir lagu daro ficil joogto ah, taas oo ugu dambeyn ku keenaysa ama ku dareensiinaysa guulo joogto ah. Qodobka afraad, shaqo la'aanta. Waxa ugu badan ee dhalinyaradeena haysata maanta waa shaqo la'aan, oo caajiska ugu badan uu soo wajaho cagajiidka, waayo shaqadu waa mid kaliya ee qofka uu dareensiisa isku filnaansho. 5, kalsooni darrada naftaada soo wajahda. Kalsoonida waa awoodda kaliya oo qofku leeyahay waxa uu ku qaban karo, cabsidana ka tirisa ama ka baabiisa oo ku soo bandhigay kartida qof ahaantiisa. Kalsoonida oo haysto iyo wax walba uu qaban karo, hamiga iyo wax walba oo hibo ah uu leeyahay. Qodobka 6, xiriirka naftaada aad la leedahay oo yareeda ayaa caajiska qayb ka ah. La yeelo naftaada xiriir joogto ah oo la sheekayso, waxaad dareemaysaa cabashada, waxaana fahmi waxa caqabadaha ku noqon kara iyo waxa ku wanaagsan ee ku hor yaala naftaadana aad guluga u soo hoyso. Shaqo badan oo qabataa. Markasta oo aad shaqo adag qabato waxaad u baahan tahay waqti nasasho ah oo ku filan. Haddii aadan taas samaynin waxaad dareemaysaa caajis maskaxeed iyo mid jireedba. Qodobka 9aad, balwadda xun oo aad barataa. Waa mid nafsadaada u horseeda xumaanta, keeni kartana caadooyinka xunxun iyo dib u dhaca. Waxyaabaha caajiska keena talaabooyinka lagu yareyn karo ayaa waxa ka mid ah: tan koowaad, joogtay xiriirka Allah subxaanahu wa tacaala aad la leedahay. Ka faa'iidayso waqtigaaga oo xisaabi. Iyo tan ugu dambaysa ee ah inaad nafsadaada dhiirigelisa iyo wax walba oo aad ku dhiirataa waxay ku horseedayaan guul. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Nabadgelyo.